Qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga Soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadaladii soo qabsoomay ilaa shirarkii Dhuusamareeb. Warmurtiyeedka labada maamul ayaa lagu yiri magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale wada tashi la'aan ku magacaawday ayaa lagu yiri qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta Somaliland iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka Gedo. Arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yiraahdeen khilaaf sababay in uu dib u dhaco fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yiri Puntland iyo Jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ay hareeyay fulinta heshiiskii 17 Sebtembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey. Puntland iyo Jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer Puntland iyo Jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay. Warmurtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay James Iswan ay door muhiim ah ka qaateen sidii madaxda wada tashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qayb uga noqdaan qabsoomidda shir wada tashi oo si guud loogu xalliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay. Warmurtiyeedka waxaa lagu yiri Jubbaland iyo Puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada. hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yiraahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xalliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka. Warmurtiyeedka waxaa lagu yiri haddaba waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiinayna in Puntland iyo Jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo horey u sii wada hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxay yiraahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir degdeg ah la isugu yimaado magaalada Muqdisho 3 January sanadkan 2021 si loo xalliyo arrimaha hortaagan doorashada. Waxay yiraahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro 8 Febraayo 2021 iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada. Dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugayay ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey min 8 xubnood. Maamulka Puntland ayaa 8 xubnood uu soo saaray, 2 ka mid ah waxa ay yihiin haweeney halka Jubbaland 8 xubnood ay mid ka mid ah tahay haweeney.